taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Togdheer gaashaale dhexe Cali Maxamed Faarax oo qaar ka mid ah warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay fal habeenkii xalay ka dhacay deegaanka Naqlibijo oo ka tirsan gobolka Togdheer falkaasi oo ahaa hooyo gubtay 4 caruur oo dhashay isla markaasina 3 ka mid ah caruurtaasi ay geeriyoodeen halka mid ka midna lagu dabiibayo isbitaalka weyn ee magaalada Burco waxaana uu taliyuhu sheegay in kiiskaas oo loo soo gudbiyay ay gacanta ay ku hayaan isla markaasina ay baarayaan sababta keentay falkan isagoo arrimahaas ka hadlayna waxa kamid ah hadaladiisii shalay koodii iyo barkii waxana loo soo sheegay in 4 caruur ay ku gubteen guri oo ay labana dhinteen labana dhaawac yihiin ciidanka booliisku sidii awal ba ahayd cadad ahayd way ka howlgaleen gaadiid baan u dirnay iyo baarayaal ka howlgalay gabadhii oo markaa daxsatay oo ka tagtay meeshiina gacanta lagu soo dhigay ubadkiina waa la soo qaaday intii dhaawac ahayd iyo dhimasho intii dhimatayba isbitaalka la keenay baaritaankiina waanu bilownay mid kalena halkan ku geeriyo markaa isagana dhaawac lagu keenay midna dhakhtarka lagu muxuu ahaa lagu daweynayaa gabadhii dee dhibatada geysatay caruurteedii oo dhashay uu geysatayna saaka xabsiga aanu dirnay insha Allah waxaan leeyahay qoyska iyo qaraabadii iyo odaygii iyo eheladiiba iyo cidii kullayba caruurta dhashay ee ka soo jeedeen waxaan leeyahay ilaahay cawl Allah siiyo sabir iyo iimaan Allah ka siiyo qoyska iyo qaraabadii ay ka soo jeedeen caruurtaas Cabdiraxmaan Cabdilaahi Xasan telefishinka caalamiga ee Sum News magaalada Burco.